subscribe saar oo leegaray oo sii share garay asxaabtaada la wadaag sida ujeedinba channelkan. Dhacdada ugu horeysa dhacdooyinkan kamida waxaa kamida ninkan oo tiirkan dhulkana aan ku midnay qof hoos ka haay korkiisa ku xukumayo jirkiisa isla markaasina aan meelna u dhacaynin. sida aad ujeedaba wuxuu sameynayaa waxyaabo qeyr caadi ah oo si sameey kara qof kasto asigoo ku xukumayo jirkiisa tiir. wadanka Mareykanka gaarigan oo aad u weyn waxa buubinaya ninkan cirka masaafo jirto 50 mitir ayuu dul kor qaadaya dhulka kadib halkan ayuu ku soo dejinaya tartamo caalami ah ayuuna ugu qayb galaa. John Freak ayaa la ninkan wuxuu ku nool yahay wadanka Mareykanka ayadoon hore u dhicin gaari noocan u weyn in intaan la biibiyo. halka waxaa ka socda shaqo qaybta dawladda hoose. raggan waxay qodayeen god ay geliyeen tiir kamida tiirarkan laamiga geeskiisa lagu talaalo laakiin waxaa qabsatay arrin yar. arrinkan ayaa qaabkan u dhacay hase yeeshee qofna maadaama uu wax ku noqon waxay noqotay runtii wax lagu qoslo. qoyskan waxay soo aadeen xeebta waana qoys kaamil ah waxayna ugu talagaleen inay xeebta mataqaanay waqti ku qaataan iyo ku baashaalaan laakiin waxaa ku dhacday amuur yar oo ah gaarigoodii ay halkan xeebta ugu tagteen inuu kaligiis iska dhaqaaqay kadibna badda gudaha uu u galay oo si cararay si u socdayna wuxuu gudaha u galay biyaha badda. kani waa baabuurka la yiraahdo forklift oo wax lagu raro alaabada. nimanka waxay ku guda jiraan shaqadooda halkan waxay saarayaan alaab laakiin waxa la shaqeynaya shaqaale caadi ah. nin kamid ah shaqaalahani wuxuu rarayay gaari weyn oo alaabta lagu dhex aruuriyo kadib markuu alaabta saaray ayuu la cararay kadib markuu la dhaqaaqay intuusan dhicin ka hor ayuu ka booday. laakiin halkan waxay ahayd meel aad iyo aad u khatar badan runtii waana khataraha lagala kulmo shaqooyinka gudahooda aadagoona filaynin. shimbirkan arkaysiin wuxuu ku farxay maanta inuu helay cunto ku filan. malaygan weyn ayuu isku dayayaa inuu laqo laakiin tan maaha mid sahlan. malayga markay laqday qaybtii ugu horeysay qaybtii dambe ayaa banaanka taliya gudaha geliyay. wadanka Cumaan waxaa ka dhacday dhacdo la yaab leh. geed timir ayaa jirada ka soo gooy kadibna wuxuu biyayaa magaalada dusheeda laakiin arrintan waxaa laga yaabaa inay tahay arrin gacanta lagu sameeyay video la sameeyay waayo waxaa laga dareemi karaa dadka deegaanka inaysan kor u fiirfiirinin amba la yaab badan uusan ka jirin geedkan. tuugada adduunyada way ka buuxaan laakiin tuugan waa tuug aad iyo aad u la yaab badan. wuxuuna sameeyay waxaan macquul ba ahayn runtii. habeenadii ay maalmihii ayuu galaa meelaha maxalaadka ee mataqaanay sida supermarketyada iyo macradada dharka iyo waxaas. meeshan ayuu soo galay wuxuuna xaday naag boonbala ah kaliya wax kale muusan ka qaadanin. ninkan kale ayaa fikrad keenay. fikradaas oo ah tubada biyaha xoog kale tuurta ee baabuurta lagu dhaqo ayuu isku dayay inuu dhulka iskaga qaado. runtii wax yar markuu isqaadayna wuxuu ku kala gooy dhulkii. runtii dhaawac ayaa soo gaaray la dhihi karaa waana arrimaha dhaco shilalka qaaska ah. halkani waxaa jooga shimbir tuuga. shimbirkan waxaa loo tababaray sida uu u xado boorsooyinka iyo lacagaha dadka ay wataan. qofka iskale ayaa u tababartay sidaas asigoo jaabka dadka ka qaadayo boorso iyo lacag wixii ugu jiraan una geenaya kii iskale shimbirka. gabadhan arkaysaan waa tuugad aqli daran runtii waxayna rabtaa inay wax xado. supermarketka weyn ayay gudaha ugu jirtaa waxayna aruursanaysaa alaabaha qaar kamid ah mana wadata boorso weyn ay ku xareysato laakiin waxay ku qaranaysaa jirkeeda iyo dharkeeda inta u dhaxayso. kadibna waxaa sidaas ku duubay kaamirada CCTV loo yaqaan ammaanka ee goobtan ganacsi ku xiran. bal arag waxay sameynayso. wariyaasha qaar markay warka tabinayaan gadaashooda waxaa ka dhaco waxyaabo. wariyahani asigoo live ku jiro war tabinayo kaamiradiisana hortaaginta gadaal waxaa laga arkay tuug soo xaday geedaha la beero oo ku jiro mataqaanay weelkii weli aan laga saarin. runtii markuu wariyay ka dhaxarkay kaamirada shaashadeeda ayuu farta ku fiiqay kadibna tuugu sii cararay. qaabkan ay ahayd. halkani waa meel yar oo damaashaada runtii waxaana ku yaalo barkad yar
dad kooban ayaana jooga, ganacsi yarna wuu ku yaalaa. laakiin arrinta ka dhacdaa waxay tahay halkaas ka soo cararay ayaa barkad wuxuu dhex ugu kormaray sida dhul caadi oo kale ugu kor socday. barkad buuxda biyaha ayuu sidaas ugu kor socday, soo la yaab malahan.